بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان waxaynu kaga hadli doonaa waxa la yidhahdaa antiviral drugs waa dawooyinka loo isticmaalo in lagu daweeyo xanuunada virus uu keeno ayaynu kaga hadli doonaa lecture-keenan. marka bal intaynan lecture-ka bilaabin waxaynu eeganaa virus maadaama virus daweynayno dawooyinkana viruska ay ka hadlayaan si loo daweeyo. virus waa maxay? marka isla eego virus waa maxay? virusku waxa weeyaan waa noole ilma aragtaya. noolaha ilma aragtayga inta badan iskii uma noolaan karo. waxa khasab mar walba in noole kale ku dul noolaado ama unugyada nooleyaasha kale ay leeyihiin ee uu weerarayo ayuu ku dhex noolaan karaa virusku. marka waxa la virusku waa obligate intracellular parasites, waa dulin intracellular ah oo unuga noolaha uu ku dul nool yahay dhexgelaya intracellular weliba obligate ah. yani obligate maxaa looga jeedaa? ay waajib tahay noolaha inuu ku dhex noolaada. marka waxa la virusku noole iskii u istaagi kara maaha ama iskii u noolaan kara. waxaa qasaba laakiin noole kale ku dhex noolaado. waxa uu ka kooban yahay halkan inoo sii raacda that concept wuxuu ka kooban yahay wuxuu noqon karaa DNA na wuu noqon karaa, RNA na wuu noqon karaa. DNA da wuu noqon karaa mar waa double marna waa single stranded DNA. marka leenahay waa single stranded DNA waa silsilad keliya noqonaya. marka leenahay waa double stranded DNA na waa laba silsiladood saas oo kale isugu maraan ay noqonaya. marka qaarkood wuxuu noqon karaa waa taas waa DNA da, marka qaarkood wuxuu noqon karaa RNA buu noqon karaa. laakiin RNA da inta badan enclosed in a protein coat waxay leedahay daxaar sare, protein sare leedahay oo la yidhahdo capsid ayay yeelanaysaa. marka envelope sare ayay yeelanaysaa ama daxaar sare. halkaas waa tacriif yar ku saabsan viruska. virus replication buu sameeyaa oo uu tarmaa wuu bataa. marka uu tarmayo virusku cannot replicate on its own, uma badan karo iski, yani isagoo keligiya iskama badan karo. ninka hore u sheegnay inuu yahay obligate intracellular parasite. waaye marka haddaba uu tarmayo muxuu sameynaya? maxaa waajibka idmadaas? it must attach an intrahost cell. waxaa waajibka ah inuu ku dhago oo uu galo host cellka. yani cellkii uu weerarayay waa inuu marka hore attach garaya ku dhagaa, kadibna gudaha uu galaa, kadibna waa inuu halkaa replication ku sameeyaa, proteinadii ku diyaarsadaa, cellka hadhowto bu'diisa uu leeyahay la wareegaa. stepska waan arki doonaa replicationka. it then uses to host cells energy. kadib markuu unugii gudaha u galo tamartii unuggu isticmaalay host cellka. host cellka waa unugii lagu dul noolaanayay parasite-ku markii ku dul noolaanay dulinka ah. marka wuxuu isticmaalayaa tamarta unuga host cellka. sababta uu isticmaalaya waa maxay? waa to synthesize protein, suu protein u diyaarsado ama DNA-diisa uu badiyo ama hadduu RNA iyo RNA-diisa uu badiyo ayuu tamartaa u isticmaalaya. intaasi waa in yaroo kooban oo replicationka ku saabsan iyadoo dhammaystiran ilaa 6 steebana waan arki doonaa. haddaba waxa la yidhaha virus qodobka kale uu ka duwan intaa hore. viruska inta badan waxa la waa difficult to kill, in la dila way adagta. sababta waa maxay? dilku weydiiya waa maxay? they live waxay ku nool yihiin inside the cells, unugyada gudahooda ayay ku nool yihiin. sababtaas ayay u adagtay marka viruska in la dilo. saa daraaddeed waxa la yidhahdaa dawo kastoo viruska dishaa unugyada kalena way dilaysaa. hadda viruska markuu gudihii galay halkan ku dhex noolaaday haddaan dawo keeno dawadaas istira viruska dil, dawadaas hadday salkan dilayso micnaheedu waxa weeye kana way dilaysaa. marka waa sababta la yidhaha virus xanuunada viruska ay keenaan dawo male waa la yidhahdaa, laakiin ka hortag ayay leeyihin. marka inta badan qofka haddii xanuun viral ku dhaco, xanuunka viralka dawada la siinayo antiviralka dawo maaha viruska dilaysay, waa dawo lowrka iyo culayska iyo tarmidda iyo badashada viruska ayay hoos u dhigtaa. waa sababta marka HIV-ga kale loogu leeyahay daaweyn wax daweeya hepatitis-yada virusku ay keenaan inta badan supportive therapy waxyaabahaas baa lagula tacaalaa
iyo dee dawooyinka antiviralka ee lowrka iyo culayska yareynaya, laakiin dawo toos ah oo xanuunkii daweynaysa ma jirto. marka ina drug baa dawo kasta that kills viruska disha, may also kill cells. sidoo kale maxay dilaysaa unugyada caadigana way laynaysaa. marka maadaama unugyadii ay laynayso, dawo viruskii dilaysa lama sameyn, laakiin maxaa la sameynaya dawo viruska replicationkiisa yareynaysa oo hoos u dhigaysa. halkan waa stepska aan kuu sheegayaan ku lahaa waa viral replicationka tallaabooyinkiisa. marka halkan number 1 baad ku aragtaa. number 1 kaas micnaheedu waxaan waa viruskii, kana waa cellki, waa host cell. kan halkan ku aragtaa host cellki, kana waa viruski. marka virusku host cellka wuu soo galaa number 1, number 6 halkaas uu ka bixi doonaa. bal imse tallaabo u qaaday, tallaabooyinka kolkeena uu qoran. marka number 1 viruska waa kan codkiisii wuxuu wataa number 1 wuxuu sameeyay attachment to the host cell. host cellki uu ku dhigay waa 1. marka kaas isleeyay uu ku dhigay host cellki diyaar ku dhigay. 2 waa maxay gudaha galay ka dhigay. gudaha markuu galay number 2 ga wuxuu sameeyay xaalada uncoated virus. yani dahaarkan sare ama yani qalkan sare uu xiran yahay ayuu iska saaraya. markuu kaas ka saaro isagoo keligii ayuu dhexgelaya marka nucleus tip an intraviral nucleic acid. viral nucleic acid wuxuu galaya into host cell nucleus buu galaya isagoo koodhkiisa bixi, koodhkii sare, koodhkaas sare uu iska bixi, kawdka yani dahaarkii sare intuu. stepka saddexaad muxuu sameynaya, stepka saddexaad control of DNA, RNA or protein production. wuxuu maamulayaa sameynta DNA-da, RNA-da iyo proteinka sameynaya unugga dhexdiisa. yani maamulkii meesha ayuu la wareegaya, isaga meesha controlaya, applicationkii buu sameynaya, genomekiisa buu badinaya, waxaas oo dhan buu kordhinaya. production of viral subunits. kadib waxa uu soo saarayaa qaybo yaryar, waa 4k virusyo yaryar. markaas waa midkan uu farabadiyo viruski. markuu badiyo shan wuxuu sameeyaa assembly virions. virionkii buu sameynaya oo yani virionka uu sameynaya waa maxay? virionka waxaa la yidhahdaa major virus. virionka waa maxay? waa virus qaangaarsan, yani xanuun soo kale ayuu soo saaray. kadib ugu dambeynka lixaad waa maxay? waa release of virions. virionskii majorka ama dibadda loo saaray. marka kan dibadda loo saaray maxaa la sameynaya? unug kaloo halkana ayuu kani gelaya, mid kaloo soo baxay unug kaluu gelaya, deedna unugyada haddana loo qaybinaya. marka kan horu soo galay ayuu ka faa'iidaystay oo ku dhex tarmay. meelaha yaryar ee calaamadda yar ay ku qoran tahay waa sites of drug actions. hadhow dawooyinka ayaan ka sheekeynaynaa meelaha ay ka shaqeynayaan. dawooyinka qaarkood waxay diidayaan uncoatingka, qaarkood waxay diidayaan number 3 oo inuu sameeyo maxaayay nucleus tagalameeyo. isla tuugii laftiisii uncoatingka ah ayay kusii dhex jirtaa inuu buuda galo ayay diidayaan. number 3 halkaa ku yaala kaasi waxay diidaysaa DNA-dii, RNA, proteinki waxyaabaha inuu samaysto. كافورك محدودية فايل السبينس كين صباحا 5 محدودية حدودية سمبلي قفينيس ذات طلاب واضح كسر قديم لكن مع أنتي فيرال دراجز دوينكا فيروس ولا دعالم لكن إنترنت دوينكا قارين وتبر فيروسز كإنت بدن أنتي فيرال ثيرابي الله يستعمله حيين فيروس كنترول باي أنتي فيرال ثيرابي أنتي ولو كنترولي دوينكا inta badan lagu control virus waayo. marka fayrasyada badan yara eegno, fayrasyada waxa ugu horeeya cytomegalovirus virus ayaa kamid ah. CMV baa loo soo gaabiyaa. hepatitis C ama beer xanuunkii xubnaha kala duwan dadkeena chronic u yaqaanaan A iyo B iyo C ah oo noqonaya hepatitis A virus, hepatitis B virus iyo hepatitis C virus. iyo herpes simplex viruseski HS loo yaqaano iyo human immunodeficiency viruseski midkasta duwankiisa arki doonaa. EDB uu kana noqonaya influenza viruseski ama lafa garaaci flugi iyo mid respiratory syncytial virus RSV loo yaqaan. waasaa ka mid ah waay sawirkan wuxuu inoo soo ururinayaa qaabka dawooyinka calaamadaha aan ku sheegaynay aan ku aragnay ay uga hawlgelayaan virus replication ka joojinaya. virus markii kood meesha soo gelaya muxuu sameynaya attachment and entry inuu ku meeshana galo.
هذا دوين بقى attachment كحرة دوين كان محا كميدا infiltrate بقى كميدا HJB لو استعماله روكاسونال بقى كميدا وحير بس مركز فايرس لو استعماله بالفيسما بقى كميدا ورسبارس سيتير فايرس لو استعماله بس attachment أي ديدان قارب واحد penetration وإنه سوق على فيروس وجوده هو سوق على ركوده إنه سوق على interferon alpha ده هي كمان مركب هيباتيتس فاكسين هيباتيتس سي فاكسين أي دوين كاسين ديدان قاربة uncounting جديدة وuncounting maxaa ka mid ah amantadine baa ka mid ah iyo rimonadine iyo influenza iyagana loo isticmaala deedna marka uncounting ku sameeyo waxaa dhacaa early protein synthesis deedna early protein synthesiska waxaa kasii dambeeya nucleic acid synthesis iyo nucleic acidska RNA DNA wixii la sameeyo kuwaana dawooyin baa diida marka NRTIS dawooyinka la dhahdo iyo NNRTS N waxaa la soo nucleoside reverse transcriptase inhibitors baa la dhahdaa non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors حاجة ما كانت المقاعدة ده ولا ما يسترن مرة كوا هيجي في قلبه الله استعماله ويحرا nucleic acid synthesis سايكلوفير باكمدا غير بس بالقص الله استعماله فسكانت باكمدا وست مقالة فيروس الله استعماله انتهي كفير باكمدا وهي بتسبي فاكسين فيروس الله استعماله بس واحد شركات قار لي هذول اللي كواز بروح أمريكا early process late process and processing دوين بحرة دوين كم حالة ده blocked by protease inhibitors قال هذا جي في قالوا استعماله marka packaging iyo assemblyga la sameeyo video la sameeyo muxuu ahaayay mature viruska replication uu sii dhamaanayo talabada waxaa viral release marka viruska indabada viruska unugan uu sameeyay unugan infection buu noqday haddii la sii daayo unugyada kale ayuu viruska baxay sameeyay dawooyin baa jira marka viral release blockarea dawooyinka maxaa ka mid ah neuro aminidase baa ka mid ah marka neuroaminidase inhibitors baa influenza loo isticmaalo marka intaasoo step oo kala duwan ayay replicationka viruska dawooyinkaas wada xanibayaan marka haddii replicationkii step ka mid ah meesha laga saaro waxay ka dhigan viruska tirmadiisa ayaa yaraanaysa unugina ku dhex jirin waxba lama yeelin marka aniga lahayn steps mid ka mid ah meesha laga saaro mid ka mid ah meesha laga saaro viruska tirmadiisa baa yaraanaysa saa daraadeed waxyeeladiisa way yaraanaysa antiviral drugski haddaba saddexdan group aynu kala saarno qaar waa afar group ay noqon doonaan oo waxaa ku HIV ga halkan aan ku jirin marka laakiin saddexdan group qaar wax leh antiherpes virus baa la dhahdaa herpes simplex viruski iyo kuwii weeyaan acyclovir baa ka mid ah valcyclovir baa ka mid ah hydroxychloroquine baa ka mid ah famciclovir baa ka mid ah ganciclovir baa ka mid ah iyo foscarnet anti-influenza viruseska metadinio rimonadinio seltamivir iyo sanamivir baa ka mid ah antihepatitiskii ama non-selective antiviral drugs baa la dhahdaa antihepatitiskan inta badan loo isticmaalo hepatitiskan oo loo isticmaalayaa xanuuno coronavirusna oo loo isticmaalaya saas non-selective marka ribavirin baa ka mid ah adefovir baa ka mid ah dibifoxil baa ka mid ah interferon alpha ayaa ka mid ah kuwaas waxay ahaayeen saddexda hore kuna groupka afraad number 4 bay noqonayaan antiretroviral drugs waxay gaar u yihiin HIV AIDS nucleoside reverse transcriptase inhibitors oo kuwii markaan idiin sheegay NRTI baa la dhahdaa cidivudine iyo didansonone lamivudine safudine ama kafir baa ka mid ah nucleoside reverse transcriptase inhibitors qaar ayaa jira NRTI loo soo gaabiyo niforipine iyo ifafrin iyo delafridine baa ka mid ah protease inhibitors qaar ayaa jira oo ilmo nafir baa la dhahdaa ritonavir idinavir nelfanavir saquenavir iyo ambrivenavir fusion inhibitors qaar ayaa ka mid ah infiltrate baa ka mid ah dawada la dhahdo qaar CCR5 receptor inhibitors baa jira receptor baa jira HIV virusku ku dhow oo chemokinase receptor type 5 la dhahdo marka marafroc dawada la dhahdo loo isticmaalayo integrase inhibitors baa jira dawadayga loo isticmaalo grafir baa la dhahdaa marka integraseku waa enzyme HIV uu isticmaalo enzymekaas marka dawooyinkan ay xidhayaan waayahay qaybtana koobaad ee dawooyinka antiviral drugska halkaas ayaan ku joojin doonaa casharka koobaad casharkan intaan ku kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu